wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska jamhuuriyadda Somaliland ayaa magaalada Burco kaga dhawaaqday natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe fasalka 8aad iyo dugsiga sare fasalka 4aad ee guud ahaan gobolada dalka. Munaasabada lagu shaacinayay natiijada imtixaanaadka oo ka qabsatay xarunta xafiiska imtixaanaadka qaranka ee gobolada Bari waxa goobjoog ka ahaa wasiirka waxbarashada, wasiir ku-xigeenka waxbarashada, gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka, wasiirka dawladaha hoose, wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta, barasaabada gobolada Togdheer iyo Daadmareer, maayirka magaalada Burco iyo gudoomiyaasha waxbarashada ee gobolada. Mas'uuliyiintii kala duwaneed ayaa si weyn u bogaadiyay wasaaradda waxbarashada doorka iyo go'aanka taariikhiga ah ee ay u qaadatay in natiijada imtixaanaadka qaranka lagaga dhawaaqo magaalada Burco, taas oo muujinaysa fidinta adeegyada dowladnimada iyo dhiirigelinta gobolada bariga dalka. Natiijadan la shaaciyay ayaa si toos ah u go'aaminaysa mustaqbalka kumanaan arday ah oo u fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga ah, iyadoona madaxda wasaaraddu ay u rajeeyeen dhammaan ardayda reer Somaliland guul iyo mustaqbal ifaya. xafiiskan maamul daadejinta lagu sameeyay shahaadooyinkiina soo gaaray ilaa 2022 ilaa 2025 tiradooda guud waxay noqonayaan 44959 shahaado. shahaadooyinka naga baxay waxa weeyaan 22116 shahaado ayaa naga baxay oo adeegii kamid ahaa xafiiska lagu fuliyay. waxaana sidoo kale aan u mahadnaqayaa wasiirka iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka oo runtii suurtageliyay in ay maanta halkan ka qabsanto aqoonta ay barteen mid barakale oo qarankooda iyo qoysaskooda iyo nafahoodaba oo ku anfacaha ka yeelo. runteena maanta aan la faraxsanahay ardayda Soomaaliland guul baan u rajaynayaa. qof kasto maanta halkan taagan uu soo maray marxaladan maanta ay taagan yihiin. shacabkii la galay maanta gabagabadiisa la marayo nicmatu تحتاج إلى شكر بالي هذا. كون صنايعين فيس كاتشر تانكي سلقاسي شقيو ميزانية دي قرشة قارنا الله سمايو. معمول دادة تنتهي وين ديني قرينايا. فيس كان عاد بانوغام حد شيئا نايو. مش هو وين بانو كنت رايا دي هالكن خلا حريرة فيس كان قول يا فرحات بانو رجين يا دمان أرضية يا والدين تاع سوق يا نتيجة هالكن كصوبي حدونتا. وحلايا هاي سوى حبرشة نقطيودو وحبرشة نطيا قيمة يلاتو أي نسمينه oo la dagaalano waxa loo yaqaano qishka kaasoo ah lugooyo qofka ugu horeeya la dagaalamaana ee dantiisu ku jirtaana waa qofka wax baranaya. labaad waxaan ambaleynayaa dadaalka badan ee wasaaraddu ku jirto. waxaan rajaynaynaa insha Allah in gobolladoo dhan ay wada gaadho. ana waxa way guusheeda wasaaradda waxbarashada runtii leh. waxaan qorshaha iyagu ahaa in sanadba gobol lagu qabto hadduu ilaahay ilaa natiijada imtixaanaadka. waxaan uga dan leenahay mar walba ma taqaana aynu an caasimaduun la joogine la socdo ka ku siixiga ceerigaaba saasaydu wadi doonaa. wasaaradda waxbarashada macallimiinteeda iyo dhammaanteedina u hambalyeynaya. maamul daadejin weeyaan hawsha halkan maanta ka socotaa. waa adeegyadii madaxweynuhu ku dhawaaqay mid ka mid ah. kuwa kalena dhammaan way wada iman doonaan. gobolada bari halkan laga waraabin doono, marka dambena gobol walba halkiisa loogu gudbin doono. waa guul baan anigu leeyahay tallaabaan hor u qaadnay. waxaan leenahay guul waa idin rajaynaynaa. wasaaradda tacliinta iyo xafiisyadeeda dhammaan waxaan leenahay waa idinka mahadnaqaynaa. qarankuna waa idiin ogyahay culayska badan ee aad waajahaysaan. dadkiinii ayaa idin u dhabar adeegaysaan waxbarashadoodii iyo maaragtay ilaalintoodii inay dad maanta dalka wax ku soo kordhiyeen. aqoon la'aantu waa iftiin la'aan. afraad ama foonfoorka loo yaqaano waxay noqotay 16,051 arday. tirada aan gudbin waxay noqotay 20 arday. tirada ka maqnaatay imtixaanka fadhiisan cilado ku yimid awgoodna waxay ahayd 41 arday. dhammaan ardayda guulaystay fasalada afraad balyo haddaynu soo noqono dugsiyada hoose dhexe ee fasalada 8aad waxaa fadhiistay 26,116 arday. 14,407 ay ahayd inamo 12,709 ay noqotay hablo. gudubtay waa 25,860 arday ee ka gudbay marxaladda dugsiyada hoose dhexe ee fasalada 8aad gudbay dugsiyada sare. iyagana waxaan leenahay baliyo dhammaan ardayda reer Somaliland meel kastay joogaan. intaan gudbinna waxa weeyaan fursado weynayaan maaha markeliya waxbarashadu way ku noqon karaan. inta gudubtayna waxaan leeyahay waan idin hambalyeynaya iyaga idintooda macallimiintoodii kusoo tabcay muddada 8 sano waxbarayay iyo muddada 12 sano waxbarayay. labada qaybood baad baan ugu hambalyeynayaa. waxaan cadeynayaa in ardayda farsamada gacantu ay dhammaantood gudbeen. waad fasaxi kartaan imtixaankii saacadda la joogo. imtixaankana waa fasax ardayay. Laib Mahmoud Muuse Xudayfi, telefishanka qaranka Somaliland, Burco.